Christopher George Lotter Wallace oo ku magac dheer Biggie Smalls ama PIG wuxuu dhashay May 12keeda 1972 wuxuuna ka mid yahay heesayaashii ugu caansanaa dunida. Biggie wuxuu jeclaa heesaha inuu qoro yaraantiisa, hooyadiisna waxay ahayd macallimad. Biggie si sir ah ayuu ugu dhuuman jiray iskuulka si uu u iibiyo daraagiska, wuxuuna ka mid ahaa dadka aadka uga ganacsada daraagiska. Mar ayaa gacanta lagu dhigay wuxuuna xirnaa 10 bilood. Kadib markii uu xabsiga ka soo baxay wuxuu bilaabay heesaha freestyle-ka inuu qaado, dadka ayaana ka helay qaabka uu heesaha u qaado. Markii ugu horeysay uu duubo hees, waxaa ka helay heestiisa aasaasaha shirkadda Bad Boys Puff Daddy, wuxuuna ku dhahay aniga wax walba kuu qabanayo, waxaana kaa dhigayaa Biggie milyaneer. Biggie waqtigaasi wuxuu jiray 18 sano. Puff Daddy ayaa dareemay inuu yahay Biggie qof hibo leh, fursadna uu haysto. Albumkiisa ugu horeeyay waxaa lagu duubay studio Bad Boys. Kadib waxa uu noqday qof caan ah. Tupac iyo Biggie sidee ayay isku barteen? Waxay isku barteen meelaha lagu iibin jiray daraagiska 1993 waxayna saaxiibtinimadooda ahayd sida walaaltinimada oo kale. waqtigaasi albumkiisa ugu horeeyay Biggie Tupac aad ay ugu farxay guusha uu gaaray, wax walbana markaasi caadi ayay ahaayeen. laakiin 1994 Tupac ayaa aaday studio Kuwait, wuxuuna rabay in albumkiisa heesaha uu la duubo Poker, laakiin wuxuu la kulmay inta uusan gaarin studio 3 qof oo burcad ah, waxaana lagu dhahay dhulka fariiso ama xabadka saar, waxa aad wadatana dhig. laakiin hadalkaasi Tupac wuu diiday, hadalka ayuuna ku adkeeyay. kooxdii burcadda ahayd ayaa isla markiiba waxay ku dhufteen 5 xabadood. isbitaalka ayaa la geeyay Tupac, wuuna caafimaaday. haddaba yaa ka dambeeyay xabadii lagu dhuftay Tupac? ma Puff Daddy ayaa ka dambeeyay mise Biggie? dadka ayaa bilaabay inay dhahaan waxaa ka dambeeyay xabadahaas in lagu dhuftaa Tupac Biggie. Tupac markuu ka soo baxay isbitaalka wuxuu galay xabsi. muuqaal gooniha ayaan ugu hadli doonaa arrintaasi. xabsiga markuu uu galay Tupac waxaa hees cusub soo saaray Biggie, heestaasoo loogu magac daray Shatia yaa kugu dhuftay xabadda. Biggie ayaana sheegay in albumkaasi uu duubay inta aysan xabadda ku dhicin Tupac 3 bil ka hor. heestaasna wuxuu soo saaray bil kadib markii xabadaha lagu dhuftay Tupac. laakiin dadka aragtidooda marka loo eego waxay dhaheen waa qofka ka dambeeyay shirqoolkii Tupac lagu dili rabay. Tupac ayaa xabsiga ka soo baxay ma xanaaqsanaa, maciil ayaa haayay, mikrofoonka ayuu qabsaday wuxuuna duubay hees. laakiin tan ma aha hees ee waa wax kale. heesta cid uu dhaafay ma lahan, qof walbana wuu caayay. Biggie, xaaskiisa, walaalihiisa, maareeyihiisa iyo dhammaan shaqaalaha iyo aasaasayaashii studio Bad Boys. halkan ayuuna ka bilowday dagaalka studio Death Row iyo Bad Boys. 3 bil kadibna waxaa la dilay Tupac. dadka qaar ayaa dhaheen sababta dilka Tupac waxaa ka dambeeyay Biggie. dadka qaarkiisna ayaa dhaheen Biggie markuu uu maqlay Tupac ayaa la dilay wuu ooyay, wuuna ka xanaaqay. laakiin 7 bil kadib waxaa la dilay isla Biggie, waliba waxaa loo dilay sidii loo dilay Tupac, waxaana lagu dhuftay 6 xabadood. March 9keeda 1997 Biggie Smalls ayaa lagu toogtay meel u dhow mataxafka Peterson ee Los Angeles. halkaasi ayuu u socday si uu bandhig faneed ugu qabto. waa la toogtay oo wuxuu dhintay daqiiqado yar kadib. cidna ma ogaanin daruufaha keenay dhimashadiisa, balse dadka qaar ayaa leh kuwa dilay waa saaxiibadii Tupac, kadib markii ay ogaadeen PIG in lagu eedeeyay inuu dilay saaxiibkooda Tupac. dhimashada Biggie markii ay ka soo wareegatay 2 isbuuc waxaa soo baxay album uu horey u duubay Biggie, kaasoo loogu magac daray Life After Death. 1999 Biggie waxaa u soo baxay albumka Born Again. 2009 waxaa la soo saaray film noloshiisa looga hadlayo kaasoo loogu magac daray Notorious. qisada Biggie halkaas ayay ku eg tahay. muuqaalkan like garay si uu dad badan u gaaro, una sii share garay asxaabtaada. channelkana subscribe saar, waxay noo tahay dhiirigelin.